anigoo ah gudoomiyaha garabka haweenka ee gobolka Tagdheer ee ururka qaranka ee Naaw magacayguna yahay Deeqa Weydaar halkan maanta waxaan ku cadeynayaa inaan iska casilay xilkii aan u hayay ururka qaranka ee Naaw ee gobolka Tagdheer ayaan iskaga casilay xilkii aan hayay waxaan halkan ka sheegayaa inaan ka bixi doono xisbiga kulmiye muddo dhawaana hadii Ilaahay gaarsiiyo aan ka diga rogan doono halkan ka ugu diga rogan doono iyo xisbiga waxaan kaga baxay iyo qaranka waxaan iskaga casilay waxaan ka soo sheegi doonaa gadaal dhamaan halkan waxaan ma soo jumarinayaa dhamaan taageerayaashayda ku nool daafaha dunida iyo gobolka Tagdheer badan ay u badan yihiin waxaan idin leeyahay all station standby waynu diga rogoreena waa ina diyaar garowdaan magacayaga waxa la yiraahdaa garabka asalka kulmiye dhamaan waana wada og yihiin waxaan u sheegay dhamaan asalka garabka kulmiye inaanu ka bixi doono xisbiga kulmiye meeshaan u diga rogodan Ilaahay hadii gaarsiyo jimcaha dambe xaflad aan la arag oo la maqal loo sameyn doono garabka asalka kulmiye alxamdulillah rabbil caalamiin muddo 4 sanadood ayaan xilka hayay waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa haweenkii gobolka Tagdheer ururka qaranka Naaw ee labada jeer ii doortay ururka qaranka Naaw ee gobolka Tagdheer ee aan dhibaatadu naga dhaxaynin ee aanu gacmaysanay insha Allah bidmilaahi karim waxaan idin leeyahay idinkuna hayga hadhina ina keena ku biiriyo waanu la soconaa laakiin waxay mahmaah Soomaalida waxay taada bun hadii la waayo bedelkiisa la helaa haday xagga ku biiran anagu waxaan ku biiri doono xisbiyada kale macaaradka ma cadhoonayo laakiin waan ku tala gashanaa in aanu isweydaarsano ayaguna ay xagga tagaan